haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista waxaa inoo haya Haaruun Macruuf. kadib weerarkii 3 bishan ay al-shabaab ku qaadeen saldhigyada militariga ee Awdheegle iyo Bariire waxaa xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradku ay mar kale ku celiyeen eedda ay u jeedinayaan dawladda Soomaaliya ee ah in ciidanku ay ka jeesteen la dagaalanka ururka al-shabaab ayna ku mashquuleen siyaasadda. weerarka Shabeellada Hoose waxaa ka dhashay khasaare badan oo ciidanku gaarsiiyeen al-shabaab iyo mid iyaga la gaarsiiyeyba. saraakiisha ciidamadu waxay qirteen 14 askari inay ka dhinteen hase yeeshee warar dhinaca amniga ah oo galka baarista uu helay waxay muujinayaan in tirada dhimashada ciidanku ay intaas ka badan tahay. haddaba siyaasiyiinta mucaaradka ayaa soo jeedinaya eedda ah in ciidamo badan oo ay ahayd inay furimaha dagaalka joogaan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho iyo gobolka Gedo ayna ku mashquulsan yihiin muranno ka dhashay siyaasadda u dhaxaysa dawladda federaalka, maamulada iyo mucaaradka. siyaasiyiinta fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday wasiirka amniga. mar walba uu jiro isqabqabsi siyaasadeed waxaa dhacday in ciidamada meelaha ay joogeen laga soo saaro. waa la socotaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray in ciidamo badan magaalada la keenay khaasatan markii ay xildhibaano fara badan oo aan aniguba ka mid ahaa ay baarlamaanka ay ka sheegeen inaysan yani ajandaha inay wax badan ka qaldan yihiin guddoomiyaha in loo sheegay. marka waxaa dhacday in ciidamo fara badan oo weliba gawaarida qafulan ay ku jiraan in magaalada lagu soo daadayo si maalinkaas loo xiray magaalada si aysan xildhibaanadaas aysan u gelin baarlamaanka. marka waxaan isleeyahay waxyaabaha fududeeya waxyaabahaas waxaa ka mid ah in ciidamadii la rabay inay difaac ku jiraan oo ay joogaan meeshaas meelo goobaha ay soo weerareen al-shabaab Awdheegle iyo Bariire in ciidamo badan laga soo qaaday ayaan aniga aan aaminsanahay. ciidamadaasna ay ahaayeen ciidamadii magaalada Muqdisho la keenay. sidaad la socoto ciidamada iyo laamaha amniga dabcan siyaasad baa hagta, siyaasadda haddana dawlad baa jirta. marka maxaa ku jaban dawladda hadda jirta si siyaasadeedu u hirgasho hadday ciidanka u adeegsato? waa su'aal fiican waaye. ciidamada horta dabcan waxaa loo adeegsadaa difaaca waddanka iyo wixii amni darraa ama rule of law in lagu ilaaliyo. oo mar walba dawladdu waa inay ayada tahay cidda haysata waxa la yiraahdo loo yaqaan monopoly of violence. cidda kaliya oo samayn karta inay ayada tahay oo ciidan leh. ciidankaasna waxaa loogu talagalay inay sharciga markii yani lagu dhaqan geliyo lagu ilaaliyo rule of law. difaaca lagu difaac shabaab xuduudaha lagu difaaca loogu talagalay. ciidamada marnaba looguma talagelin inay siyaasadda ku milmaan. qodobka 127 ee dastuurka wuxuu leeyahay ciidamadu waa inay siyaasadda ay ka madax banaanaadaan oo aysan ku milmin. neutrality waa inay jirtaa. marka ciidamada looma isticmaali karo siyaasad. yani amni sugid waa loo isticmaali karaa. waa loo isticmaali karaa in yani difaac inay difaacaan xuduudaha. laakiin ciidanka looma isticmaali karo in dad lagu caburiyo, in shacabkii Soomaaliyeed loo isticmaalo, in siyaasad loo isticmaalo ama objective siyaasadeed oo leeyahay dartood yani intimidation dadka loogu sameeyo. waxyaabahaas oo dhan looma isticmaali karo. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa isaguna qaba in la kala ilaaliyo ciidanka iyo siyaasadda. gaashaanle sare Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu hore u soo noqday taliyaha ciidamada Danab. ciidankii iyo siyaasadda waa la kala ilaalin karaa sababta ciidanka siyaasadda waxay shaqo ku leeyihiin ma jirto. waxaa qaybta dhanka fulinta siyaasadda qayb baa haga ciidanka dhanka diyaarintooda, ka warqabkooda iyo daryeelkooda. laakiin waa siyaasad oo ku saleysan sharci iyo nidaam. masalan sarkaalku amar khaldan uu ogsoon yahay baalmarsan sharciga ma qaadan karo mana fulin karo. sidoo kale ma sii bixin karo wixii isaga ka hooseeya. eedaha ku saabsan doorka laamaha amniga iyo muranada siyaasadda waxay aad u soo shaacbixeen 19 bishii Febraayo ee sanadkan, markaasi oo ciidamada dawladdu ay dagaal la galeen ilaalada qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada oo ay ku jiraan madaxweynayaal hore, isla markaana ay rasaaseeyeen siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo doonaya inay bannaan baxaan. dawladda Soomaaliya waxay markii dambe sheegtay inay ka xun tahay dhacdadaasi. gaashaanle sare Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu leeyahay dhacdadii 19 Febraayo waxay iska hor keentay xubno ka wada tirsan ciidanka, waxaana uu ku tilmaamay wixii dhacay ayaan daro. 19 Febraayo waxa horto isdagaalayay oo xabad isweerdeysanaayay
waxay ahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tubyo ka wada tirsan isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa runtii wana ayaan daro waxay dhacay dhanka dawladana waxaa lagu marwarsiyoonayay sarkaal oo generaal ah oo mas'uul hore ah inuu warbaahinta hadal la wadaagay hadalkaasna waqtigeeda ku habooneed iyo in maaragtay waqti la siiyo kala sareynta sharciga haddii khalad uu sameeyna cadaaladda la horkeeno laakiin isla habeenkaasi weerar lagu qaado goob oo murashaxiin ay ku sugan yihiin oo mas'uuliyiin hore ah oo runtii dastuurku u ogolaanayo inay haystaan ilaalo u gaar ah oo ka badqabo nabadgelyadooda marka waa runtii waa ayandaro waxay dhacay waxay ahaydna waddo kale in loo maro eedaha mucaaradka waxaa ka jawaabay kuna gacan sayray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Guuto Odawaay Yuusuf Raage oo aan dhawaan waraystay qaybo kamida bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen diiradda ku hayeen oo dagaalka shabaab ahayd inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad Muqdisho ay joogaan marka arintaas carqalad ma ku noqotay ama maxaa ku idhaahdaa fursad ma u noqotay shabaab baa la dhihi karaa aad iyo aad u mahadsantahay horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed arrimaha siyaasaduna arrin ma quseeyo ma aha siyaasaduna waa siyaasad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xaqiiqatan dadka fikirka noocaas doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliyeed ay ka gadaan ama ay fikirka noocaas u heesta inay mansabka iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dhididkooda iyo dhiigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaar u adeegayaan taas horta waa iska nasiib darro waxay qayb ka tahay runtii dadka fikirada guracan ay ku jiraan bulshada Soomaaliyeed kamida dhihi ma karna hadda siyaasi ma dhihi karna xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta muxuu ahaa ay xuduudaha dalkan uu leeyahay taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow gacanna waxay ugu diyaar garoobayaan taas oo howlahooda ku wataan gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadawga dhibaatada ku hay ay uga dulqaadayaan marka fikirka noocaas dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada waa mid aan ku saleysnayn waaciga dhabta oo jira waa mid aan hadaafta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqeynayo mid baalmarsan way taas aan dhihi karnaa ayagana waxaan leenahay marnaba yeysan ilaabin ciidankan uu jiri doonaa uu soo jiriyay uu shaqay doonaa cid dadka uu adeegayo u shaqeynaayo qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo marka waxaan leeyahay ilaahay ha garabsiiyo waxa ay ka mudan yihiin laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax bannaan yihiin saad u dhigtay waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo Haarun maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed siyaasadda qayb uga yihiin ma jiraan maya xaqiiqatanka marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay hayaan waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqeynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin dhinaca kale marka loo dhigana sideedaba siyaasaddu ciidanka ayadaa dhista ayadaa hagta haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhinac xun laga eegayo dee qofka ka eegayo waa qof muxuu ahaa ii sheega aragtidiisu aysan nadiif ahayn iyo aqliyadiisu waayo haddaanba toos ku weydiiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lug miyay ku lahaayeen dhacdadii 19 Febraayo ee Muqdisho horta 19 Febraayo oo laga sheekaynayaan la isla dareensanayba 19 Febraayo sida aad la socotoba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkuna qaarna waxay ku tilmaamayaan mas'uuliyiin ama musharaxiin dalkan u taagan ama horena mas'uuliyada kale uga soo qabtay in la weeraray waxna waa xaqiiqada dhabta oo jirta waxay tahay oo la socotaan 19 Febraayo waxa dhacay 19 Febraayo waxa dhacay dad kamida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
oo darajooyinka ugu sarreeya leh ayaa magaalada muqdisho caasimada qaybo kamida iyo tagay waxay ka cadeeyeen in ay la wareegeen wax dawladuna aysan jirin waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamida ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid kasta ee baalmarta inaan talaab ka qaadno waa mas'uuliyadna saaranba. hadalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa dhageystay wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed waxaana uga falceliyay sidan Soomaalidu waxay tiraahdaa nin gunti xun waxaa la moodaa inuu wax qarinayo waa hadalkiisii jawaabihiisina waa ka muuqdeen inuu si sax su'aalihii aa weydiisay ee ku saabsanaa in siyaasadda ay ka madax bannaan yihiin ciidanka inuusan sidii la rabay oo waafiga ahayd inuusan uga jawaabin waxaa tusaale fiican kuugu filan dowladda oo aan ognahay in yacni afgooye ama ilaa balcad aysan tegi karin in ciidamada loo daabulaynayo oo weliba gawaarida xabadda karin diyaaradaha la saarayo oo gada la geynayo inay tahay arrin siyaasadaysan cid walba waa u muuqataa. Kasoo hadallada ay isweydaarsanayeen waxaa xusid u baahan in qayb weyn oo ka mid ah mas'uuliyadda ciidanka ku sugan Awdheegle iyo Bariire ay tahay inay gacanta ku hayaan 5 buundo ee ku yaala webiga Shabeelle kuwaasi oo shabaab ay u adeegsan jireen inay ka soo tallaabiyaan baabuurta waaweyn ee sida qaraxyada laguna weeraro magaalooyinka muhiimka ah sida Muqdisho iyo kuwa kale. muhiimadda ay leedahay in ciidanku gacanta ku hayaan buundooyinkaasi waxaan wax ka weydiiyay Samiira Geyd oo ah khabiir arrimaha ciidamada horeyna la taliya dhinaca amniga ah ugu soo noqotay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre. Harun sidaad la socoto cadowga ma nasto mar walba qorshe cusub bay la yimaadaan waxayna gaadayaan daldaloolo ama meelaha ciidanka ka jilicsan yihiin inay fursad ka dhex abuuraan. tan labaad muhiimadda ay leedahay 5 buundo dad badan uma muuqato laakiin waxa hubaal ah inay cadowga dhaawac weyn ku tahay mar haddii uusan dhaqaajin karin qaraxyadiisa iyo ciidan badan iyagoo wadooyinka aysan si toos ah u mari karin oo magaalada madaxda si toos ah soo gali karin. ugu dambeyntii waxay ayaga rabaan inay mar walba magaalada madaxda Muqdisho ay dhibaato u geystaan oo ay awoodooda ka muujiyaan. 5 buundo ay kamid yihiin Bariire iyo Awdheegle ciidanka xoogga dalka waxay gacanta hadda ku haysaa deegaanadaas muddo ku dhow 2 sano laakiin laga bilaabo 2019 ilaa iyo hadda muddadaasna waxaa la soo weeraray dhowr jeer ciidanka xoogga dalka waxay muujiyeen geesinimo iyo dhabar adeeg wayna iska difaaceen cadowga. Awdheegle iyo Bariire waxay kamid yihiin deegaanada ay hawadooda ku badnaayeen diyaaradaha wax basaasay iyo kuwa duqeeya ee Mareykanka sanadihii la soo dhaafay kuwaasi oo dhowr jeer oo hore taageero dhinaca cirka ah siiyay ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee deegaankaasi ka howlgala. Samiira Geyd waxay leedahay in kastoo al-shabaab ay bila qorsheeyeen weerarada noocaas ah haddana waxay ku xisaabtameen in maqnaanshaha ama yaraashaha ciidamada Mareykanku ay saameyn ku yeelan karto awoodda difaac ee ciidamada Soomaalida laftooda. runtii fursad kasta oo ay helaan way ka faa'iideysanayaan cadowgu. droneska taageero muhiim ah ayuu u yahay xoogga dalka xagga la socodka iyo burburinta dhaqdhaqaaqooda laakiin kooxdani howlgal dagaal oo ay muddo dheer sii qorsheyn ma qaadaan marka aniga uma maleynaayo inay la socdaan isbedelka ku yimid habka gaantaalka droonka loo isticmaalayo oo ay hagtay howlgalkan sida ay u qaadeen laakiin si guud ahaan waxay ku xisaabtamayaan in tegidda Mareykanku ay saameyn ku yeelatay howlgaladii burburinta cadowga oo culayska ka qaadi jiray ciidanka joogtada ah laga soo bilaabo bishii Janaayo way yaraadeen howlgaladaas oo ay hogaamin jireen ciidanka danab oo Mareykanka si dhow ula socdeen oo u taageeri jireen taas waxay saameysay 5 buundo mar haddii ciidankii goobahaas joogay ay noqdeen ciidan difaac galeen aysan jirin ciidan gurguura oo firfircoon oo ka hortaga cadowga. dhinaca kalena galka baaristu waxa uu la xiriiray taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee lagu magacaabo Africom. afayeen u hadlay Africom waxa uu ii sheegay inaysan joojin tababarkii ay siinayeen ciidamada danab oo ay ka go'an tahay taageerada iyo tababarka ciidankaasi. afayeenkaasi oo lagu magacaabo Kelly Kahalan waxa uu sheegay in wararka sheegaya inaysan sii socon doonin taageerada danab ay siiyaan aysan wararkaasi run ahayn. waxa uu sheegay in danab ay yihiin ciidamada ugu tababarka fiican uguna kartida badan ciidanka Soomaaliya ayna yihiin ciidan geesiyaal ah oo ay dhab ka tahay sugidda amniga Soomaaliya. waxa uu sheegay inaysan jirin wax muujinaya in ciidamada danab ay burburayaan. afayeenka Africom Kelly Kahalan waxaan sidoo kale wax ka weydiiyay in maqnaanshaha ama yaraanshaha howlgallada ay la sameyn jireen ciidamada danab ay fursad u noqotay ururka al-shabaab. Kelly Kahalan waxa uu ku jawaabay in ciidamada danab iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ay iska difaaceen weerarkii uga yimid al-shabaab 3 bishan khasaare badan ay u geysteen.
waxa uu sheegay inay ka warqabaan in al-shabaab ay yihiin koox argagixiso ah oo halis ah oo raadiya fursado ay ka faa'iidaystaan si ay wax ugu dhimaan amniga Soomaaliya. waxa uu sheegay in Mareykanku ay sii wadi doonaan iskaashiga ay la sameynayaan Soomaaliya si ay culayska ugu sii hayaan ururka al-shabaab ugana hortagaan ficiladooda. isagoo ka jawaabayay su'aal ahayd inay suurtagal tahay in taageerada iyo tababarka Africom ee danab ay joogsan karto, afhayeenka Africom waxa uu sheegay inaysan ujeedadooda ahayn inay soo afjaraan tababarka iyo taageerada ay siiyaan ciidanka danab. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.